barnaamijkeena maanta waxaynu ku lafaguri doonaa dhibaatada ay nagu hayaan guuxa gawaadhida diyaaradaha iyo xitaa soo dhicista iyo dhawaaqa telefoonada oo in muddo ahba lala xiriirinaya dhibaato caafimaad oo saameyn xun leh. Hadda saynisyahanno badan ayaa bilaabay in ay baaritaan ku sameeyaan dhibka ay u geystaan buuqa iyo qaylada guud ahaan jirkeena. Sanadkii 2011 garoonka diyaaradaha Jarmalka ee lagu magacaabo Frankfurt oo ah midka ugu mashquulka badan Jarmalka waxaa lagu daray qayb afraad oo ay diyaaradu ka kici karaan kuna soo degi karaan. Arrintaas waxay sababtay dibadbaxyo ballaaran. Dad cadhaysanaya muddo sanado ah ku dibadbaxayay garoonka hortiisa maalin kastoo Isniina. Wuxuu dhibaato iyo burbur ku hayaa noloshayda. Mar kasta oo aan isdhaho ku naso beerta guriga waxa aan maqlayaa ama arkayo waa guuxa diyaaradda ay dul maraysa. Waa mid ka mid ah dadkii ku dibadbaxayay garoonka hortiisa oo sidaa warbaahinta u sheegay. Waxaa gurigiisa dul mara diyaaradaha ka kacaya ama ku tegaya qaybtan cusub. Wuxuu sanadkii 2009 akhriyay warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo sheegtay inuu xiriir ka dhexeeyo buuqa, sawaxanka iyo xanuunada ku dhaca wadnaha, balse xilligaas caddeyn badan looma haynin. Isagoo walaac badan ka qaba arrintaas, wuxuu sanadkii 2011 waqti badan geliyay baaritaanno oo arrintaas wax badan kaga baranayo. Wuxuu leeyahay waxaan la yaabay in dhalinyarada isla markii ay maqleen qaylada ay hore ka naceen oo dhibsadeen, xoogaa kadibna ay la qabsadeen. Waxaan markasta u haystay in la qabsashada arrintan ay qaadanayso muddo sanado ah, laakiin sidaas ma dhicin. Wuu soo kordhayaa maalin kasta guuxa diyaaradaha iyo gawaadhidu. Dhanka kale xanuunada wadnaha ku dhaca ayaa sii badanaya. Inaad ku noolaato meel buuq badan waxay ahayd arrin in muddo lala xiriirinayay in qofku maqalka waayo dhagoolna uu noqdo, balse guuxa diyaaradaha iyo gawaadhidu dhibkoodu uu dhaafsiisan yahay dhagaha. Guuxa gawaadhida waxaa marar horeba loo sababeeyay caafimaad darrada maskaxda iyo dareenkeedaba inuu waxyeeleeyo. Waqtigan aynu joogno cilmi baadhis 10 sano socotay ayaa lagu ogaaday in guuxa gawaadhida iyo diyaaradu ay halis badan ku yihiin wadnaha. Waxay saynisyahanadu ogaadeen arrimaha sida gaarka ah sababta ugu ah. Arrimaha la ogaaday waxaa ka mid ah tusaale ahaan dadka degan nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee Frank waxay dadka kale uga halis badan yihiin inuu ku dhaco wadna xanuunku ilaa 7%. Cilmi baadhis la sameeyay 2018 waxaa lagu baaray caafimaadka 1 milyan oo qof. Baaritaan kale oo lagu sameeyay ilaa 25,000 oo qof wadna xanuun u dhintay intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2015 oo ay ka mid ahaayeen dad deganaa nawaaxiga garoonka diyaaradda Zurich ee Switzerland. Waxaa lagu ogaaday in dadkaasi ay u dhinteen wadna xanuun. Wuxuu xanuunka aad u kordhaa habeenkii, si gaar ahna dumarka ayuu u saameeyaa. Sidaa wax lagu qoray wargeyska arrimaha wadnaha ka hadla ee European Heart Journal. Baarayaal ayaa tijaabiyay saameynta ay ku leedahay qayladu wadna xanuunka. Waxaa u soo baxday arrin aan filayn. Wuxuu isbeddel aan caadi ahayn ku dhacayaa mid ka mid ah xuubabka wadnaha ee lagu magacaabo endothelium iyo halbowlayaasha dhiigga qaada ee wadnaha. Xididada oo ah kuwa caafimaad qaba ayaa isbeddela marka uu gaadho buuq aad u sarreeya. Way soo burburtaan sidii wax qarxi raba, taas oo saameyn xun geysan karta. Marka sawaxanka qayladu uu gaadho maskaxda waxay soo kicisaa 2 qaybood oo muhiim ah. Waa qaybta turjunta sawaxanka iyo qaybta dareenka ee falcelisa. Marka qayladu ay sii badato gaar ahaan xilliga hurdada, qaybta dareenka waxay jirka u diyaarisaa carar ama isdifaac. Marka ay taas dhacdo, jirku wuxuu soo deynayaa hormoono. Xididada qaar way sixdhaan, kuwa kalena way ballaadhaan. Sidoo kale heerka dhiigga ayaa sare u kaca. Caloosha shaqada ayay yaraysaa. Magaalooyinku way ka buuq badan yihiin meelaha kale. Dadka ku nool meelaha degan uma adkaysan karaan buuqa. Arrimaha qaadan waaga ah ee dhaca waxaa ka mid ah in sonkorta iyo subagga jirka ku jira ay dhex galaan dhiigga si ay awood dheeraad ah u siiyaan murqaha. Mararka qaar jirku wuxuu bixin karaa jawaab halis keenta sida gacan qaad. Taas waxaa sabab u ah sare u kaca heerka dhiigga iyo walwalka, waxaana ka dhasha xanuuno saameeya wadnaha. Baaritaanno lagu sameeyay dadka iyo jiirka ayaa lagu ogaaday in xuubka endothelium uusan si wanaagsan u shaqaynin marka guuxa diyaaradda uu soo gaadho. Taas macnaheedu waxa uu yahay in qaylada iyo buuqa dheer uu halis u yahay jirka si guud, gaar ahaanna wadnaha. Si dhibaatadan xal loogu helo, dowladda ayaa bilaabay in ay qaadaan tallaabooyin lagu yareynayo guuxa iyo sawaxanka dheer. Sidoo kale guryaha ayaa loo dhisayaa qaab celin kara qaylada. Waxaa jira shirkado sameeyay qalab casri ah oo tiknoolajiyad ah oo loogu talagalay in qaylada lagu yareeyo. Waxaad samayn kartaa in qolkaaga jiifka aad ku xidhato qalab celinaya qaylada iyo guuxa bannaanka ka imanaya. Xalka ugu yar waa inaad dhegaha gashato qalab loogu talagalay marka la seexanayo si qaylada aadan u maqlin. Haddii aad ku nooshahay meel qaylo badan, muddo kadib waad ilaawaysaa qayladaas oo waxay kula noqonaysaa arrin caadi ah, balse waxaa si hoose ku saameynaya dhibaato dhanka maskaxda ah iyo wadna xanuun.